السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استوجوكتين إلهي سبحانه وتعالى إذن نبضيله ما أنت وحن رواين إذن لو ذاقو هل حديث نبي صلى الله عليه وسلم لقوري نبي يقول لمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قفك استغفار الدائمة إن بدن إلهي الدن بداف ويديستا سدح شيء إلهي سينيا عريري كستي إلهي بان مخرج يميل وكبح وغسمينيا همي يمرو كستو هايستنا إلهي سبحانه وتعالى أيا فرج كسينيا وإلهي بأفر ماذنيا ميل أونا كفلين بنا إلهي سبحانه وتعالى كأرزاقيا مركا ولا ليال ما أنت وادوكتين حالة لغو جرو هميجي يمروكتي وابضتي عريري بدن بالا دريميا أرزاقda nafteeda walwal baan dadkii ka haysa marka waxa daawo noo ah inaan istighfaarta badino. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ciriiriga waxa laga bixi karaa istighfaarta laakiin istighfaar mar iyo laba ma waa man lazima qofkii laazima ee ku adkaada. Nabiga alayhi salatu wassalam isagoo dambigiisii hore iyo dambigiisii dambe la dhaafay ayaa wuxuu yiri waxaan maalinkii Ilaahay dambi dhaaf weydiistaa oo istighfaar la imaada 100 jeer. riwaayadaha qaarkoodna 70 bay sheegayaan haddaad saacadii u qaybiso waxaa laga yaabaa intaasoo jeer inuu saacadii nabigu calayhi salaatu wasalaam istighfaar weydiisan jiray. ta kale dhibaatooyinka waaweyn iyo caaqiba xumada markay yimaadaan waxyaabaha lagaga badbaado waxaa ka mid ah istighfaarta. ilaahay wuxuu ma kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wama kaana allahu mucadibahum wahum yastaghfiruun. ilaahay cadaabi maayo nabi muxamedow intaad adu nooshaheed dhex joogtid. ilaahay cadaabi maayo inta ilaahay dambi dhaaf weydiisanayaan. walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibkan ha naga faydo. ilaahayna waxaan ka baryaynaa biasmaa'i lxusnaa wa sifaatihi lculaa masaajidii inuu noo furo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala noo soo celiyo xanuunkana ilaahay naga ilaaliyo. wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin.